Ma isticmaashay application-ka sawirka kaartoonka ka dhiga oo bulshada Soomaalida ay haatan aad u isticmaalayaan? Haddii aad isticmaashay, halis ayaad ku jirtaa. Si halkan ugu yeer dadka aan weli isticmaalin si ay kaga hortagaan halistani. Muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa halista uu leeyahay. Ugu horreyn, follow Bogan Xuseen Xaaji Xasan. Muuqaalkana like saar, siina share garee si Soomaalida kale ay iskaga ilaaliso. Guud ahaan baraha bulshada ee Soomaalida waxaa maalmahani haystay sawirro loo ekaysiiyey kaartoon ama sawir gacmeed, kaasoo dad aad u badan ay isla dhex marayeen barta Facebook-ka. Sawirradaasi oo markii hore iyagoo sawir caadi ah la geliyey barnaamij ama application loo isticmaalo in uu kaartoon u ekaysiiyo, ayaa la sheegay in ay caqabad weyn u keeni karto dadkii isticmaalay. Waxaan baaris ku ogaaday in inta badan application-ka loo isticmaalo sawirrada kaartoonnada inuu yahay Photolab, oo ah app fududeeya in sawirkaagu u muuqdo qaab sawir gacmeed ah balse aan ahayn. Application-nada noocaani ah waxaa la sheegay inay dad gaar ah ka dambeeyaan in sidaa ay bulshadu iskula dhex marto. Dad bulshada magac ku leh ayaa loo soo dhiibaa oo marka hore sameeya si dadka ku xiranna ay ugu daydaan ilaa uu ka gaaro meelo fogfog. Application-kan iyo kuwa la midka ah, saynisyahanada waxay sheegeen in halis ay ku jiraan dadka isticmaala, maadaama tixraac iyo cidda sida gaarka u leh aanan inta badan la ogaan. Application-kan Photolab oo hadda dadka ay aad u isticmaaleen maalmihii la soo dhaafay, waxaa la sheegay in weli aan la xaqiijin cidda leh, balse loo malaynayo in dalalka Shiinaha ama Mareykanka laga leeyahay. Caqabadaha ugu weyn ee markan oo kale ay saynisyahanadu ka digeen ayaa ah in xogtaada moobilka kugu jirta la xadi karo si fudud, sidoo kalena inay suurtagal tahay sawirradaada ama sawirka aad u isticmaashay app-kan si uu kaartoon kaaga dhigo in loo isticmaali karo waxyaabo kale oo halis ah oo ugu dambeyn ku saameyn doona. Ma aha markii ugu horreysay oo sidan oo kale application dadku sidaa iskula dhex maraan. Sanadkii tegay iyo kii ka horreeyay ayaa sidan oo kale application-ka FaceApp waxa uu noqday midka loogu isticmaal badan yahay baraha bulshada Soomaalida. Application-kaas ayaa isaguna u muuqday midkan ka agdhow, waxa uuna sawirka u ekaysiinayay sida qof waayeel ah ama qof aad u da'yar. Caqabadaha ay leeyihiin ayaa xilliyada isticmaalka application-ka uu socdo aanan la arkin, sida ay sheegeen saynisyahanada, balse saameyntooda ayaa gadaal ka soo ifbaxda. Soomaalida ayaa haatan aad iskula dhex maraya sawirrada kaartoonnada oo lagu sameeyey application-kan Photolab oo ka mid ah kuwa laga digay isticmaalkoodu. Haddaba adigu weli ma isticmaashay, mase taqaan qof isticmaalay? Halkan ugu sheeg in uu halis ku jiro. Sidoo kale kan aan weli isticmaalin uga dig. Muuqaalka like saar, siina share garee si Soomaalida dhan ay iskaga ilaaliyaan halistani. Ku soo biir Bogan Xuseen Xaaji Xasan. Mahadsanid.